siyaasiga weyne cilmi jaamac cawad oo kamid ah saraakiisha xisbiga kulmiye ayaa kormeer ku tagay degmada Wardaad waxaanu ka furay xafiisyo cusub oo ku yeelan doono xisbiga kulmiye waxaana goobtaasi ka hadlay qaar kamid ah odayaal iyo oqaasha degmadaasi waxayna sheegeen inaanay u iman gudida kaambeynka ee uu yimi siyaasi cilmi jaamac cawad waxaana hadaladoodii kamid ah waxa weeye cabatin aanu ka sidano maamulka xisbiga heer gobol sidaa darteed waxa weeyaan kaambeygu wuxuu soconayay muddo iminka maalintiisii afraad oo kulmiye ah ayaa birita ah al'aana waxa weeyaan lagama hayo kii maalintii hore iyo waxa weeyaan ka biritada soo socdaaba wax degmadu ay ka haysaa ma jiraan warbixinta degmada haddaan ka waramo waxay ku suntan tahay waxa weeyaan kulmiye waa aasaasayaashii kulmiye weeyaan sidaa darteed waxaanu cabatinkan nagu kaliifay aanu adkaysan weynay muddo 3 bilood dadkan dad heegana bay ahaayeen dad waxa weeyaan xidhan oo xisbiyada ka xidhan bay ahaayeen dadku xogayaha xisbiga kulmiye u jooga Wardaad waxaanu ka cabanaynaa oo aanu ka cabanaynaa cabatin gudida kaambeyga ee uu soo magacaabay xisbiga kulmiye saraar wax allaale wax aanu ka hayno iyo waxay noo keeneen iyo waxay nagula tashadeen midna aanan ka hayn Wardaad waa xudunta Soomaaliland waa meeshii saddexda tiifarba ahayd kulmiya ee ugu codka badnay ee codka soo baxayay socodka iyo dhaafdhaafka gudoomiye anagoo aan ka caraysnayn haddana waxaa dib noo sii gocday markii la danayn waayayba annagoo 2 bilood ka hor guryaha ayaga sii kiraysanay ismaal gelinay hantida iyadoo u quudhnay halkii aanu lahayn xisbiba idiin soo gutay idiin soo fatahaya ayaa dee muraayadahana laga dalacday taasuna waxaa dee bayd maayo halkan waxaan ka caddaynayaa anigoo ah gudoomiyaha degmada Wardaad ee xisbiga kulmiye waxaan halkan ka caddaynayaa in xafiiska la furay bisha aynu joogno tii ku 3 ahayd markii xafiiska la furay kulmiye wasiiro iyo cid uu soo dirtay iyo qof halkan ka sharaxnay oo maamulay midna naguma jirin haddaanu nahay shicibka Wardaad annaga ismaamul aanu leenahay ku furanay xafiisyada markii caynkaas u dhacday madaxweynuhu gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi waa nabaasay si kastaba waxa ahaadeene misra waa soo noqdo waana dhaafay markuu 2 jeerna dhaafay waxaanu isku daynay bal horta inaanu kulmiyanahay in dadkuna arko oo aanu ismuujino waxaanu yeedhanay saxaafad mid wasiiro baa joogay waxba naguma kordhin waxna nama yeelin anaantiisa isaga halka u dhaafmay inta markaan hore uga gudbo maalinta wax xisbiga ah oo maalinta ka horeysay oo aanu isaragnay ninka aan waxna nagu kordhin waxna na yeelin moojiye kulmiye fariimo badan baanu u dirnay waxaanu ku nidhi ilaa dad ujeedadoodu kulmiye tahay baanu ahayna waxaanu ku nidhi nin dulle baan dantii uu lahaa galab ku daynayni salaan iyo fariin waxaan u dirayaa madaxweynaha أحمد محمود سيلانيو انت كبعدي قدومية حسبك كلمية فرين بانو درينا حسبك مدحدي سنة فرين بانو درينا وأنا أركي ودتك وأركي حسبي دتك مغينة يا لكن تنكهر لما أرك دت حسبي مغينة يا ولا ور حسبي يو هذا وان كسوقي نادي عن مش كوشونا نوكاله ما أنا أركي هلا كي ولا أركي حسب الضد مغينية تامر كان هرا الله ضعفه عباشة جود بان وحنو كسر كيديننا وحلا إلى حركة جال موضة حرام ضد هنا وحان ولا هين لما وضع صاروا حسب قلفتي عد بو صادري عد بو صايد مضي دورا بيال بحلو يدد وحي عادي وحيهين مكلا قرني لكن ضد بو صادري dadka horta marka hore Wardaad degmada Wardaad waa kulmiye waa sidii ay ku suntanayd wayna tahay horena way u hay wayna ahaan doontaa insha Allah bilaa kariim
laakiin aanu ka cabanaynaa xalay guddidii kaambeega ee loo soo magacaabay degmada gobolka Saraar ayaanu anagu abitka ugu weyn ka muujinayna waxa weeye waxaanu dhexmara iyo dadka waa la dhaqdaa horta marka hore dadka waxa weeye waa la dhaqdaa xusbiyadu dadka way kasbadaan oo way dhaqdaan cidna dhaqatay cid la hadashiyo cid dadka maxaan ku shaqto qancisa ma hayno annaguna dad baanu meel ku hor joognaayo haday maxaan ururada haweenka yihiin haday ku dhalinyarada yihiin haday maxaan shacabkii kale magaalada yihiin cid kasta waxaanu ku qancinaa annagu waxaanu ahayn qolyo safar ku yimi degmada Waridaad waxay ka mid tahay degmooyinka ugu codka badan gobolka Saraar ee dadka ugu badan iska diiwaan galiyay runtii waan qirayaa boqolkiiba 95 inay yihiin kulmiye weligoodna ahaayeen hadeerna yihiin hadday jirto cabashada la sheegay cabashada guddiga kaambeynka ee loo soo magacaabay waa run way jirtaa cabashada ay ka cawdeen xisbiga kulmiye madaxdiisa sarsare musharaxa xisbiga madaxweynaha mustaqbalka waxaan filayaa inuu arrinta cabashada Waridaad ka cabatay aad wax ka qaban doontid oo ah guddida loo soo magacaabay kaambeynka qaar kamid ah iyo qaar kamid ah wasiirada ka soo jeeda gobolka Saraar oo aad moodid inay shacbigii xisbiga taageersanaa iyo xisbigii iyagu ay kala dhex joogaan oo ay kala xigsanayaan ama xubnaha qaarkood aad moodid inay cid kale u shaqaynayaan marka xisbiga waxaanu ka codsanaynaa dadkaasi dad meel kala tegaya maaha weligoodna kulmiyay ahaayeen qadiyad bay ku yihiin kuma aha wax doonis kuma aha weligoodna way ahaayeen laakiin madmadowga ay ka caydeen waxaan qabaa waxa keenaya dee nimanka la soo dirtay markii haddii la qoonsado dee madmadow waa imanayaa oo la yidhaahdo xisbigii ma kuwa inoo soo dirtay cabdiraxmaan faysal family televisionka caalamiga Ariel TV magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar